qarni taariikha oo ay leedahay iyo dhismayaasheeda la yaabka leh ayaa u suura geliyay in ay soo jiidato diiradda kamaradaha iyo qalinka jaraa'idka. Kibra waa mid ka mid ah isku rarannada ugu weyn qaaradda Afrika. sanadkii 1920 ayaa dawladdii gumaystihii Ingiriisku waxay go'aamisay in ay dejiso barxadda alwaaxda lagu beero ee magaalada Nairobi koox Nuubiyiin ah oo safka ciidamadooda ka mid ahaa. Nuubiyiintuna asal ahaan waxay ka soo jeedaan Masar iyo Suudaan. cidina si saxan uma garan karto maalintii la degay Kibera, laakiin waxaa cad in Nuubiyiintu asaaseen kooxdan waxaa laga keenay Suudaan iyo Masar. Ingiriiska ayaa ku xoogsan jiray, dagaalna way la galeen boqortooyadii Ingiriiska. Uganda waa la geeyay, Tanzania waa la geeyay xataa. markii la dhisayay wadada tareenka bariga Afrika waxay ahaayeen xamaalo. waxaas oo dhammi waxay cadaynaysaa in Nuubiyiintu ay ahaayeen gumaystihii xoog ay adeegsan jireen. markii dagaalkii koobaad laga soo jeestay waxaa la dejiyay Kibera, waayo Ingiriiska sidaabaa u howl fududayd. Nuubiyiintuna dan kamay gelin, ciyaarahoodii dhaqanka ayay isku madadaaliyeen ilaa ay la qabsadeen kayntii. Kibera waa meel taariikh dheer ah. dad uu Ingiriiska askar ahaan uga soo kaxaystay Suudaan oo Nuubi ah ayaa horta markii hore meesha la dejiyay. waxayna ku beegnayd xilligii la dhisayay khadka tareenka uu maro ee East Africa. mar alla markii dadka meesha la dejiyay iyaga iska lahaa. waxaasoo dhan markaad eegto hadda Nuubigii waxay noqdeen dad fara ku tirisa oo iyagu laftooda gacanta ku gabanay. dawladda Kenyatta markay dhalatay ka bacdi dad badan oo Kikuyu meeshii galay waa lagu siqay ilaa maanta ay kaga badan yihiin mujtamaca kale dadkii Nuubiga ah. isdaandaansi la isu xulufaystay ayaa dawladihii reer Yurub laba qaybood dagaalkii koobaad isaga hor yimaadeen. Nuubiyiintu waxay ka mid ahaayeen kooxihii Afrikaanta ahaa ee ka barbar dagaalamayay Ingiriiska. muddadii dirirta lagu jirayna Nuubiyiinta oo ka tirsanaa xogagii King's African Rifles waxay muujiyeen geesinimo. dagaalka dabadii waa in kooxdan qorshe loo sameeyaa. gumaysihii Ingiriiska oo arrintaasi ka duulaya waxa uu u soo bandhigay kooxdii Nuubiyiinta ahayd in ay hubka iska dhigaan isla markaana degaan barxadda alwaaxda ee magaalada Nairobi. iyada oo aan Ingiriisku askartii Nuubiyiinta ahayd siinin lahaanshaha dhulka ayuu dejiyay. iyaguna way la qabsadeen deegaankii, guryo ayay ka yagleeleen, ganacsi ayay ka bilaabeen. goobtiina waxay magac raagta uga dhigeen Kibra oo macnaheedu yahay hawdka. Basically, when we are talking about Kibra, this vocabulary which came from Nubian tribe, which means a forest, which means that this place was a very big jungle. asal ahaan markaan ka hadlayno Kibera waa eray ay bixiyeen Nuubiyiintu. micnuhu waa goob hawd ah, taas oo ay ula jeedeen deegaanka oo markay degayeen cimilo hawd oo kale lahaa. haddase sidaad gadaasheeda ka aragtaan waxaa hawdkaas u dhigma guryaha oo si qaab xun loo degay. Kibra waa afka Nuubiga. Kibera ma hadda la bedelay oo magacii xogaa waa la nasaqay. Kibra baa la yiraahdaa. Yusuf waa Nuubiyaan waxa uu ka tirsanaa askartii gumaystihii Ingiriiska u shaqaynaysay. wax badan kama xasuusan karo wuxuu u soo joogay. waxaan ugu tagay gurigiisa oo ku yaala Kibra. raggii ay isku gadaha ahaayeen kaligii baa halkan nolosha lagu kuunyaa. suuradda gidaarka ku dhegan markii aan weydiiyey hal cabaara ayuu ku dhaygagay, wuxuuna xasuustay waayo waa waagii uu xoogga ahaa. wax badan nooma xasuusan, waa nin weyn xitaa da'diisa nooma sheegi karo. ha yeeshee tan waxay muujinaysaa in ay Nuubiyiintu asal ahaan xaafadan Kibera ay ahaayeen kuwii aasaasay, waana sida taariikhdu ay qorayso. guyaal iyo guyaal kadib kooxo kale ayaa garabka ku soo qabtay. Nuubiyiintiina guryihii ayaa laga kiraystay. Kibrana si weyn ayaa loo camiray.
Jonet waa 50 jir, waxay ku dhalatay degmada Machakos. hilaadii 63 kiiloomitir ayay halkan uga soo socdaashay. yaraanteedii waxay weyday laxaadkeedii. 2 caruur oo agoona ayay haysataa. waxay ku faraxsan tahay ganacsigeeda oo hadba sii kobcaya. ciidan ka sameeyaa ganacsigayga kuula bilacsan oo dumarka isku qurxiyaan ayaan ka soo saaraa. waxaan adeegsadaa alaabtan aad arkaysaan. dhoobada waxaan ku daraa dareerayaal kala duwan iyo midabeeyayaal, kadibna waan qalajiyaa. kadib waxaan ku taxaa xasowdan, nolosheedana waan kala soo baxaa. halkan waxaan ku tababaraa caruur badan oo isku raranta ku nool oo sideeda oo kale curyaamo ah. hooyo, dariiqada markaan marayo caruurtu way iga cararaan oo waxay dhahaan waa dad qalato. 47 sano oo Kenya xornimo haysato, waxba looma qaban Kibera. sharci dhuleed ma jiro, dhuumaha wasakhda qaada ma jiraan, wadooyinna ma laha, biyo saafiya lagama cabo, arrimo bulsho iyo shaqo dawladeedna haba sheegin. cudurdaar baase jira, deegaanku waa sharci darro. mahadhooyinkii la kowsaday doorashooyinkii madaxtinimada ee dalka ka dhacay dabayaaqadii sanadkii 2007 ayaa keenay rabshado ay ku qurwaayeen 300 oo ruux, dad kor u dhaafaya kuna hoy beeleen 75,000 oo qof. boqolaal iyo boqolaalna ay ugu dagaageen Tanzania iyo Uganda. Maxamed Cadow waxa uu ka mid ahaa warfidiyeenadii wax ka tabinayay dalka waqtigii ay rabshadahaasi ka socdeen. waxyaabihii ka dhacay wadankan sanadkii 2007 dabayaaqadiisii waxay ahaayeen wax argagixiyay wadanka iyo wadamada dariska la iyo guud ahaan beesha caalamka. muddo yar gudaheed ayaa waxaa la laayay dad aad u tiro badan, guryo badan mataqaanaa ee la gubay. dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayaa la sababay, iyadoo inta badan dadku aynaan islahayn saasay wax u dhici karayaan. markaad eegtana waxay ku muujinaysaa dhibaatooyinka tirada badan ee kale ee qarsoon ama daahsan ee ku dhex jira mujtamaca Kenya ee ay soo saartay doorashooyinkii natiijadoodii murunkii lagu murmay. marka waxyaabo aad u guracan ayaa dhacay siiba galbeedka wadanka. marka la eego gobolka Rift Valley iyo gobolka Nyanza iyo gobolka Western ayaa rabshada aad u xooggan ka dhaceen. bal dabcan Nairobi lafteeda dhibaatooyin lixaad ayaa ka dhacay. waayabe dadka caasimada ugu saboolsan maxay ugu saameyn badatay rabshadihii ay keentay siyaasadii doorashooyinka madaxtinimo. dadkaas waa dad gobolada ay ka yimaadeen aan dhul ku lahayn, ilaa hadday dhul ku leeyihiin halkaasay joogi lahayn oo beeran lahayn. shaqooyin ka heli waayey deegaanadoodii ay u dhasheen oo markaa biday in ay u soo hayaamaan caasimada si ay shaqooyin yaryar u helaan. waa dad meel ay u laabtaan iyo wax ka dambeeya aanay jirin. teeda labaad, dadka halkaa degan waxaan odhan karnaa waa dadkii ugu hanweynaa isbeddel siyaasadeed oo waddanka ku yimaada. tan saddexaad, ninka la taagnaa madaxweyne Kibaki ee Raila Odinga ee isagu markaas iyada sheeganayay guusha, waliba in laga faramarojiyay guushii gacanta u gashay, waa xildhibaan laga soo doortay Kibera. marka intaas awgeed iyo dadkaas oonan u arkin wax ka lumayay inaynan jirin, hadday dhintaan ilaa maalin walba waxay u dhintaan dacdarra iyo dhibaatooyin ay ka mid yihiin cudurro, iyagoo aan haysan mataqaanaa ee bayad wanaagsan ay ku noolaadaan. marka geeri iyagu wax weyn oo dhibaato u maaha. xaaji waxaad ii sheegtaa markii halkan ay dhibaatooyinka ka dhacayeen doorashadu ay socotay wixii adiga kugu waan i qabsaday waxay qabsaday markii madaxweynaha ra'iiska Kibaki qaatay yaashay Magaleeri weerarna uga qaaday. isku markii aniga guriga iska dhex fadhiyay caruurtaydi iyo gurigii dhagax lagala daalay wixii odageeda dhanba haddii uu jeedo guriga dhanba guriga lagu gubi meesha ka cararay.
bas markay dowladda rayla iyo kabaka ay heshiiyeen oo isku daray yaan soo noqonay haddada xoogaa yar baa meesha aan ka dhisay alxamdulilah hadda meeshaas ka deganahay halka waa iska cafaad qabnaa maasha allah. dhacdadii iigu yaabka badnayd ama aan la fajaco ilaa haddana maskaxdayda aanan ka goyn yaa waxay ahayd intii ay rabshadaha socdeen ciidamo booliis oo raxana oo kuwa la yiraahdo GSU-ga sida gaarka u tababaran paramilitary-ga ayaan waxaan ka raacnay Kibera afkeeda amin subax ah 7 meelaha soo socday marka dhalinyar baa dhagaxyo ku tuuraysay gudahay u galeen marka xaafadii annagana waa daba soconnaa sawirna waan daba wadannaa waanan mataqaanaa wixii aan aragno waa sawirayni waxaa nagu dhacday marka intii aan soconay bay dhalinyar istaajiyeen waxay ka soo saareen faasas dhaadheer marka dhalintii sida loo garaacay oo maaragtay sida arxan darrada ay askarta uga dhaqmeen ayaana maskaxdayda ilaa hadda ka goyn yacni qaar ku istaago oo weliba meeshuu doonu kaga istaagayaa faaskii qaar lagu dhuftay baa jiray oo mataqaanaa dhiig badan ka baxay markii halkiibaana looga tegay marka si aan wanaagsaneyn baa loola dhaqmay waxyaabaha qaar ee naga soo gaaray dadka waxaa ka mid ah dumar nooranayay waa nala kufsaday oo askartaa kufsatay infact waxaan aad u xusuustaa gabar nagu tiri viruska dhaliya aidskan qabaa balse nin boliisa baa kufsaday mar alla markuu doonayay inuu kufsadana waan u sheegay balse dhag umuusan dhigin marka dadkaas waxaa la oran karayaa dhibaatooyinka haysta ka sokow dhibaatooyinkii ay dowladda ku qabatay xilligaas iyada iyagoo mar loo arkayey dadka rabshadaha hurinaya isla markaana dhanka dowladda madaxweyne Kibaki ay u arkayeen waa halka uu Kibera oo halka uu Raila Odinga laga soo doorto dadkaas si adag loola dhaqmo haddii kale ahayn magaaladay qarqinayaan marka si aad iyo aad u adag baa loola dhaqmay dadka Kibera xilligaas dadka faqiirka ah oo u arkayay in la khiyaameeyay mudanahoodii Raila Odinga ayaa ka faa'iideystay qalalaasihii doorashadu gelisay wadanka. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais kwa Jamhuri ya Kenya. Wadooyinka ayay soo istaageen iyaga oo dhagax tuuraya. Arrinkuna waxa uu isu rogay dadka kala isirka ahi inay islaayaan. Annaga halkan idaacadda Baamoje FM waxaa noogu yimid guddiyo kala duwan oo qabaa'ilka ah. Idaacaddayada oo la hadasha dadka xaafadan degan waxaan u diraynay fariin nabadeed. hooyo xabiibo waxay ka mid tahay Soomaali badan oo halkan deegaan ku ah waayahana ku dhowra waa 48 jir haysata 7 caruura oo habla u badan waxaan ka codsaday in ay nolosha qoyskeeda wax nooga sheegto marka horese sidee bay hooyo xabiibo halkan ku soo degtay 82 bishii koowaad ay ahayd bishii koowaad ha 1982 ha aan imaade okay seed ku timi markii hore waxaan ku imid reer Wajeer ah anaga Wajeer jooga oo ku idahayna li joogi yaa ninkan hadda qab aabihiis meeshii ugu arkay anaga gabar ah baadidii ugu soo tuugay anin waan ogolaaday
dadkii idahaynan waa ogolaan duqa ay keeni ninkii oo i garanaynin anta lagu keeni isagoo halkan buu deganaa ninkaa haa naakelu qabe meeshuu deganaay waa la ii keenay kabacdi ani naag waa la idhisay meeshan ay ligu dhisay badi daa la idhisay bada reer baa noqdee 8 aruura un dhale haa wiila iga dhantay gabarna waa la guursaday kuwii kale hadda waa joogaan noloshaan waan iska noolna un ninka awal shaqo u qabay shaqadii wuxuu ka baxay 94 uu shaqo ka baxay maantaas inta ka dhaxdooda waan iska nool un anan waxaan cadara aan ka gadaa isagana waxaa gare leesiyaal kareesmiya la dhahaa wareejiya uu ka gadaa noloshaan waa iska fiicanta un laakiin dhigniga akhriiskii aruurta hadda tabar u wayne hadda ilmaha kulligood adigu waad arkaysaa maanta iskuul waay kulligood waa kuwaan adigu waad arkaysaa سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذا حقت مؤنه مرار هدعنا أودي معنينا أود هدعنا درارتي معنه كوا اسكن نولون عفماد وان لين هاي لكن أنا عفماد ما قبي نافع يقبني نفلو واي سيد نقول سام نافت هداي قبني وان كفاء مركان كفاء كدنب يعني نافت يقو حرمي كبعد أمر يكسو بحي والله وها هنا أنا أركي ماله وها ولين نسوا جارو صوماليد كله دبلغو هاست ما أركي يعني مركا كتامبليش هذا عن رمنا أنت تغنان ده دولكين ودينكين كجوفتانا ده موجي وها كلا دبعتت ماشي كصوت كتامبليش هذا حق هذا بقى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنا اسكمله ده اسكله وان كريست كيران وجرا هاي كردي سويتي كريجيس وحاوا لحبة ولا أذي لا برهون عن كجراء لحبة ولا مو كجرا كون إلا بقولا نو كجرا ها عن كل شيء كرام هاي اللي هذا ودنك ماشي أنا دقن هذا النولان في عنكم هاستي ودن كاين عنكم نقول روا هذا نقول رامن هذا شلنك أو أنا عنكم نقول أي ما هاستي يعني أنتوا هاي يقول ربا هاي تبردرا يقول ربا هاي سموجي مجعلي ماشي مجعلي وأنت كاين نجعلي sida caadiga haddii waxbarashada laga hadlayo waxaa muhiima in laga hadlo manhajka ardaydu wax ku baranayso gudbinta barayaasha iyo fasalka ardaydu ay ku jirto waxaasoo dhani waa muhiim marka waxbarashada caadiga laga hadlayo laakiin xaafadda kabiira waxa kaliya laga hadlaa waxa weeye ardayda wax baranaysa inta ay leeyihiin markii aan soo galnay fasalkan ardaydu si diiran ay noo soo dhaweeyeen dhammaantood annaguna sidaas leeg waxaan u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan waxbarasho waa hadiiba ay jirtay waxaa nasiibsada dhifdhif da'yarta ku nool xaafadan kuwaas oo rafaad samir ku saaban yahay waalidkood ku sabaaleeyo waxbaro aad noloshan ka baxdide 7 times 9 7 is an odd number while 9 is an odd number. When you multiply the two you get 63 and 63 is an odd number because it is not divisible by. I like to be a pilot. I like to be a teacher. I like playing football. badeecado kale ayni duwan mid wax iibinaya iyo mid wax iibsanaya wax walba sidii loogu talagalay bay u socdaan waase inta qoraxdu soo jeedo dhaqaalaha dalka Kenya waa kan ugu horumarsan dhammaanba kambariga Afrika waxaana dhaqaalaha dalkani ku tiirsan yahay dalxiiska iyo wax soo saarka beeraha Kenyana waa xarunta wax soo saarka warshadaha gobolka iyo adeega maaliyadeed Gazeti kwa mzuri ganacsigaygu waa iska roon yahay inkastoo baryahan aan wax weyn tabanayno taasina waa mid ku xiran dhaqaalaha dalka rabshadihii halkan ka dhacay sanado ka hor si weyn bay ganacsigeena u dhaawaceen
sidaad aragto ganacsatadii waa soo degaan buuxsharadii ay keenaanna waa laga iibsanayaa. mahadsanid. alaabtan waxaan ka keennaa gudaha Nairobi oo keliya 8 sanana halkan ayaan ka shaqaynayay. waxaan ku bilaabay anoo maaragtay xogo dukaan yar intii meesha ku furtay intaan gadgaday waxaan arkay inuu soconayn aan iska xiray caradaan ku bedelay reer maaragtay kuwaan guursaday waa kuwii meeshaan waa muslim nuubi baa la dhahaa dadku ima rumaystaan raranaani haynbaan cagaha isaga rogaya. jiingadaha daxalaystay ee casuusta ah waxay qoraxda iyo roobkaba gabaad uga yihiin dadka ku nool xaafadda Kibra. guryaha cooshadaha ah waxaa dhexdooda ku duugan sheekooyin murugo iyo xanuun badan, marmarka qaarna jacayl iyo farxad baaba hadheeya. faqriga ayaa boqortooyo ka samaystay, markaasaa mid kucleeya iyo mid kadleeyaaba boqortooyada cashrigeeda ku hoos nool yahay. sababta usoo deg walaashay Mandera oo joogay igu soo wacday ima dhahday waad saacideynaysaa walaashayda marka shaqo kale ku jirtay ilmaha marka caruurteen u hayay caruurta marka waa koraan iskuul ay dhigtaan caruurta ayagoo yar hadda 5 caruur baan hay aan u shaqeynay xaafadeedan joogay xaafadeeda markaan joogay caruurta way weynaatay iskuul bay dhiganayaan hadda mid gabadha u weyn hani al dhaha waxay dhigataa klaaska 6 ay dhigataa nolosha halkan marka Mandera ka imaaday halkaas ayaan bartay mogtahay nolosha waa la qabsan way markii waan joogay maxay danta igu qasbaysa mogtahay inaan walaashay la saaciday walaashay idan shaqo ku jirta inaan meesha iska joogo danta igu qasabtay ma jecli laakiin waa iska joogay markii waan joogay waan la qabsaday kaas barnayna caada jecel aan dhaxmaray waas jeclaanay markaas shaqo ma haynin meel computer ku shaqeynay oo asagu iska leeyahay meesha isku aragnay meesha isku jeclaanay ani asaga muddo 5 bilood aan jeclaan shaqo helay shaqadii aaday shaqadii 2 bilood ayuu ku maqnay markuu soo noqday hooyaday la hadlay lacag u diray abtiyalay la hadlay ajrar aabay la hadlay lacag u diray waas jeclaanay waa isguursanay ilaa hadda xaafadeen jooga hooyadiisa marka ibkayga weyn waxa ninkayga waan jeclaa asagana uu jecel yahay okay goorma isguursatay ya may bishii sanadkii soo dhaafay bishii afraad kabira isku guursanay arooska halka ka dhacay hadda xaaladda haysata hooyadiisa dib weyn ugu haysa hooyadiisa dib weyn ugu haysa hooyadiisa dib kuma hay laakiin dib ay ugu haysa aniga hooyadiisa waa jecelnahay laakiin markay xaafadda ka tagtay xaafad kale tagaysaa sheekadeeda ay geynaysaa waxba iguma saacidayso waxba ima qabata gurigeeda unbay joogtaa bay dhaysaa ninka igu diraysaa ninka markuu imaado ninka 2 bilood uu banaanka ku maqnaana shaqada markuu imaado sheeko bay u sheegaysaa aan luuqadooda ma fahmay luuqadooda isku sheekaysanayaan ma fahmay ninka markaas imaado way igu qaylina markaas igu qayli maamada markaas soo joogta ama way joogto qaylu dhagaa isaaray marka dhagaa isaaray marka ana waa ciila weyna markaas ciila wuxuu dhahaa waxaanay waa hadal li sheegay ay raali ha buu dhahaa meesha marka deganay meesha naga guuray markaan dhaha marraba maamada hooyadiis marka hore waas jeclaan marka uuran qaaday warkii markaan qaaday is jeclaan marka maxaafadda Mandera aad kibaandaan doontay asaga ilaahay kibaanda doona Mandera markaan aaday waxay dhahan marka uurkii markaan waan jirin uurku iska soo riday dhahan anna waxaan soo riday ilaahay loog ma laha jiraa iga soo riday markaas ay noqdo dadkooda dhan waxay dhahan waa iska soo riday uurka saan asaga wax jira waa kala dhaasiya asaga qof wax fahmay oo qof jecel laakiin cidooda hadalkoodu maqla cidina agteeda naga guuray markaan dhaha waa isku imaadeenaa waa isku soconaynaa waa isku imaadeenaa markuu dhaha ma ogolo wigel soo dhaafay way gabar kale siin rabtay gabar kale guursay dhii rabtay marka arrintan waa laga qarqarnaa asaga hooyadiisa marka loogiin asaga hadii aan fiir hadaladiisa aan fahmay asaga ma raba dad doqoshinka cidayna u soo yeeray dadka doqoshinka marka arrinta way xaliyaan waxay dhahaan meesha anaga nolol ma u jirnay dhahan duqdan say sheegaysa meesha marka hooyadiisa maskaxdeeda ma fiicna mara maskaxdeeda la galay waxay dhahaan maamada habarta waalanta waxa ku daynin wax walba ku dhaad iska dulqaada iska sabar baka ninkaad intuu ku araray anaad sabarkan guriga ku jooga laakiin dib weyn ah haysta madadaalo ahaan filimka Slumdog Millionaire aad baa looga xiiseeyaa loogana daawadaa Kibra. Jamal Malik
waa wiil faqiira oo aan waxbarasho helin waxa uu ku koray isku raranta ugu weyn aasiya Mumbai Hindiya wuxuu ka qayb galay barnaamij su'aal iyo jawaab oo waabayaabe sidee buu Jamal Malik wax walba uga jawaabay Yes. Final answer A. Aramis. The right answer! haddii filimkii soo baxay bilado badanna soo hooyay nasiib xumo jilayaashii saboolka ahaa abaalkoodii kamay helin Sambuur Samow sheekooyin iyo sheekooyin ayuu hayaa wuxuu dhashay sanadkii 1931 caruur badan baana halkan ugu dhalatay inkasta oo af Soomaaligiisu wacan yahay nasiib xumo caruurtiisa afkooda hooyo bedelkiisa deegaanka ayaa ku canqariyay af Sawaaxili waxaan banaamnaa ayadana waxaa adiga orod inta ku orod ayadana inta ku orod wax soo qajaaf maga meesha diyaa sukuumaha iska xamaalin sukuumaha waa iska raqiis haddii shanta shilin waan boqol iska cunayna iyo boosada beeyga raqiis ah saas iska nooleen alxamdulillah meesha ku ilmo dhalay ilmo badan maalka ku dhalay imisa caruurada ku dhashay hadda caruurtu waxa shan ku dhalay laba gabdhood waxaan ka keenay ma ogi hadda waxa ku dhashay afar wiil ilaa gabdhood halka ku dhashay mid waxay ku jirtaa university ku jirtaa alxamdulillah jaamacadda ku jirtaa jaamacadda Kenyatta ay ku jirtaa university oo Kenyatta mid shiila ku jirtaa waxa ya raxmal sabu oo xagga oo meesha ka arsata university ilaahay baa gargaar oo qajaafna ilaahay weyna waxad ma wallahi kibra dadka dangan meesha gaalada ku badan qolal yar baan meesha ninkii laba qol cashay ku qabo hadii gaalada xoog lacag ku misinayso waa ka bixin hadii ku jeer waa ku dilayba waa tuna markii dagaal baa ka dhaca indhaha laga eega marka meeshii hadii dadka oo kristaanka ku badano meeshii bacdaha waa dhib badan tahay ilmaha waa aad bay dhib ugu qabaan qamrada iyo bangiga xashiishka waxaas aad ugu badan haddii gaalada mar waa la isku dagaala kibira waa la socotaan waa habeenkii wixii ilaahay ku sii lama waayo marka habeenkii booshay iyo sukumida iska cunaa salaadina koobkeeda shaaha iska ilmaha iska cabaan subaxdii waa la iska kacaa wixii noo ilaahay soo sii hadina habeenkii waa la soo gataa hal dollar ka badan meel karna hal dollar ka badan meel karna shan qol baan ku leenahay meel xagga shantaas qol waa meel caliid oo la geli karo la geli karo waad kreysay shantaas qol ayaan baad waxa loo jeedaa 500 loogu jiro waa meel dad gaalmo muslimka is geli karo meeshan kira aan u jira wali meeshan waxaan u imaad qolka Soomaali oo halkaan demo stage xagga oo degan ayagana saas oo kale waqooyi bay ka imaadeen si ay sheegeen marka waa ka soo xalka waa ka nimanka saas halka u joogi jiray xaaladda family-gaaga markaan ka gudubno Soomaalida halkan degan imise qoys baa lagu qiyaasi karaa inta adigu ka war hayso 400 waa gaarina 400 qoys ilaa 500 waa gaarina ilaa 500 qoys waa gaaraya marka dadka Soomaalida ah ee halkan degan waad kala taqaanaa goboladii ay ka yimaadeen iyo meelaha ay ka yimaadeen wax Soomaali gudaheeda Soomaalida fog oo kale markii hore ka yimid ma jiraan dadka meeshan degan Madera iyo wajeer dadkii ka imaaday way bay u badan yihiin iyo gaars wax yar baa jooga wax yar kuma badno wadaadku ilmaha dugsiga u hayo wadaadada dugsiga meesha ka haya wax gaars hadda cid gaars ka imaato meeshan degan ma jirto laba shaqo joogto waxaa jooga macallin Keenan iyo macallin Aadan baa jooga wax gaars ilmaha dugsiga u dhigan waxaan dadka meeshan jooga waxa weeye shirga waxa weeye Madera dadka ka imaada u badan waxa ku xiga dadkii wajeerka imaada marka qolada Boorant iyada ku badan tahay mooyaale ka imaada marsabad waa anka adeer wixii meeshan ka dhacay guriga aan ku jirna mar lagu gubiyo waxa
waxaa isdagaalay jalwadii iyo dhubiga dagaal isku qaaday meeshaan inta guriga waa la gubi halkan waa la gubi waa ka cararnay alaabtii oo dhan meeshaan noogala gubi bacdii haddii magi damba wixii muslimkoo joogay nebigaan gacan siinay waa iska celinay laakiin guryaha aada noogala gubi mar labaad haddana guryaha dagaal baa dhacay oo kuraha guryaha dhan baa la gubi hadda kukuyidooda aada loo laynaya markaas ida kuwa muslimka aada loo laynayna taasaa iigu daran intii meeshaan ku arkay kibira halkani waa wadada tareenka dadku aad bay u jecel yihiin wadadan inay isticmaalaan waana wadada keliya ee ugu nadiifsan ee xaafadan ku taalla dhinacyadeeda dadku waxay ka furteen ganacsiyo kala duwan oo kala ayni duwan xitaa waxaanu aragnay intii aanu daraasadan wadnay dad wadada tareenka gudaheeda ku ganacsanaya waxaa dhacaysa mararka qaar inay dadkaasi isticmaalaan iyaga oo wadada gudaheeda ku dhex adeeganaya ha yeeshee waxa yaab leh marka ay maqlaan tareenku inuu soo guuxayo badanaa way joojiyaan ganacsigooda waxayna isticmaalaan dhinacyada u dhow wadada waa wax yaab leh marka wadada tareenka oo kale uu qof isticmaalayo haddiisana waa u halis tareenka halkan soo mara badanaa waxa uu ka yimaadaa Uganda Mombasa isagoo isticmaalaya wadadan dadka ku nool Kibera wadadan aad bay u jecel yihiin waana wadada ugu nadiifsan ee ay u isticmaalaan hawl maalmeedkooda wadadan waxaa ka dhaca shilal badan maalmo ka hor waxaa ka dhacay shil xoog leh oo dad badanna galaaftay waa dad ku ajira oo si basajeer si baaskil oo raaca oo meesha istaaga haddii tareenkii meesha la degan yahay markiisa dhacana oo soo dhacaan dad baa ku dhinto haddii cashir oo dad baa ku dhintay 10 iyo goor baa 10 goor bas dhacay markiisa dhacana waa la dhintaa markiisa kacan la kaceena halkaas ka degan yahay waa ka ujeeda halkaas ka degan dhowr jeer buu dhacay 10 goor buu dhacay markiisa dhaco wixii ku hoos jira waa ku baaba'ay haddii dadkii xaafadda waa badan dadkii badan haddii halkaas guri laga dhistay oo waa ujeedaa halka birta maarta yaa habeenka la seexdaa alaabtiin waxaa lagu gataa meesha tareenkaas mara maarta yaa lagu gadaa haddii inta la aada male ugaandhaas geyna bambaasaas geyna elolaas geyna waxa badan uma qabto xaafadan waxba uma sida alaab maya wax siiyo Soomaaliya dalkeedii oo farax leh mooyee ka waan xasuusanaa yani xanuunaan nahaya maxaan u tari kornahay waxaa ma u tari kornaa haddaan waxaan u taran lahayn gee maanta joognaa nabadda aan ka ridi lahayn laakiin hadda maxaan u qaban kornaa waxba uma qaban kornee laakiin hadda waxaan maqano ilaan dilayna ilaan haya hadda maxaan ka qaban kornaahe ilaahayna u tuugahayna ilaahayna u barinayna anta nabad meesha Soomaaliya Allah ku rido Soomaali waxaan jeclahay inay fiicnaato Soomaali waxaan jeclahay inay fiicnaato dagaalada inay joojiyaan aan jeclahay inay sidoo hore isku noqdaan aan jeclahay inay sidoo hore ku noolaadaan aan jeclahay 20 sano hadda way ku dhowdahay intay dagaal meesha ku jira maalin walba dhiig Soomaali la daadinayo maalin walba dhiig muslimka la daadinayo ma jecli ilaaha illallah muhammad rasuulullah habeenkii ma hurdo isha aan leeyahay waxa weeye dhibkaas way Soomaali waxaan ilaahay u dadkii baa jira meeshii qolada aan ka dhashay oo wajeer wasta degto haddii waa nimanka xagga dega waa adeerayaasha dadkii baa xagga jiro Soomaali dhan baa walaal ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay nabad isu keeno labada dhinac saddexda geesood oo isdagaalamaya ee dhigi joojiya ilaahay ka cabsadaan quraanka ay kitaabka ay soo noqdaan ay toba keenan oo nabadda ay dadka dhibka ay ka qaadaan oo maskiinta ay laana ay ka qaadaan oo ay heshiyaan oo nabad ay keenaan taas ilaahay u tuugaa dadkii waa تعلياي وجير ونجور تعلياي بري والجار تعلياي وجير ونجور
علياي تدي كرسا علياي حرمة كتوب علياي تدي كرسا علياي حرمة كتوب علياي تدي كرسا علياي حرمة كتوب. halkani waa halis haddii shaacu noogu dumo kooxo budhcada ayaa soo baxa wax walibana way ka dhacaan. habeenkii Kibera waxaa u madaxa dadka khamriga macmalka ee jangayga loo yaqaano isticmaala kuwaas oo maandooriyuhu falal xunxun ku sababo. si aanu shaacu noogu dumin halkan waa in aanu isaga tagnaa. سلام أسوان سلام ونوب سلام ونوب مال سلام أرمال سلام كرجعين الوي إرمال سلام كرجعين الوي كرجعين الوي كرجعين الوي كرجعين الوي أرمال سلام كرجعين الوي سلام كوريغاين الوي كوريغاين الوي كوريغاين